وحسي وين لوغو سو دhoweeyay magaalada Boorame ee caasimada gobolka Awdal fanaanka weyn Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hilaaci hirgalay soo dhaweyntani ayaa wax ka qayb qaadanayay boqolaal dadweyne ah oo kala yimid darifyada magaalada Boorame dhalinyar iyo haween ayaa u badnaa dadka soo dhaweynayay Hilaaci hirgalay soo dhaweyntani waa ay ka duwanay soo dhaweynii hore ee loo sameyn jiray bahda fanka ee imanaya gobolkani Awdal Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hilaaci hirgalay ayaa waxa uu magaalada Boorame ka soo galay dhinaca galbeedka magaalada Boorame isagoo maalmihii ugu dambeysay ku sugnaa Jamhuuriyadda Jabuuti fanaanka weyn Hilaaci hirgalay ayaa dhalinyaradii iyo haweenkii soo dhaweynayay waxay ku dhawaaqayeen erayadani intaasi kadib waxa halkaas hadalka ka soo jeediyay gudoomiyaha xaafadda Xaasleyda Suleymaan Xuseen Aadan isagoo ka warbixiyay fanaankeena qaaliga ah Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hilaac oo ka soo kaxaynay xuduudda Somaliland iyo Jabuuti magaalada Hilaac ka soo kaxaynay shalay galab u boqonay ilaahay inagu suurta galiyay inaan soo galino magaalada Boorame han kana soo galino xagga galbeedkan ka soo galinay xaafadda Xaasleyda United ka soo galino dadkiisii family-giisii saaxiibadii أهل يقرأ دمانتي سادو صدق ويسين أبوك ما سنتين. لكن كنسنا وحال كاسكا الله أبوان كوين قبل كأوضل عد حكين قيق ويسوي كمدها أبوان ذي سيدا وين الصق عن قبطي فنان هلاعي هرجلي. هذا الكوسي بدي لما أبل ما سنتين كل اللي كستابا وحكوية هاي وأفر كاويا هذا الركين معناها اللي والبا هو إنه تحجلي ويا. وضد كاس ويان تان حينين تقول أنا هو كواس ويان وبالله توفيق. gabagabadii waxa halkaasi ka mahad celiyay soo dhaweynta loo sameeyay Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hilaac isaga oo tilmaamay runtii maanta ma qiyaas karo shucuurteeda ilaahay ma aansana nabadqab iyo caafimaad dib isku celiyay waxaan boqolkiiba aad u mahad celinayaa sida quruxda badan sida balaaran ay soo dhaweyseen dadkeygii runtii ma qiyaas karo shucuurteeda dib isku si kastaba ha ahaatee soo dhaweyntani ayaa ahayd mid aad u ballaaran oo ay ka qayb qaadanayeen haweenka dhalinyarada kuwaas oo aad u jecel fanaan Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hilaac waxaana igu soo dhaweeyeen caleemo qoyan iyo sidoo kale sacabo iyo aralaas aad u qurux badan waa nuuxkadiye telefishinka caalamiga Star Boorame.